ninkeyga 10 sano la eegayay saaki warqadii oo saxiixay yaa maxkamadii u baxsatay Soomaali dhulkeedii u baxsaday taala maaha 5 taala inoo dhisan u baahnaay farmaajana u sheegay daa aragto taalada asaga gacantiisa noogu dhiso sababtoo asaga waxaan soo ma dhicin بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل كستoo dunida ka joogtaan halkani waa telefishinka caalamiga ee MMTV ku soo dhawaada barnaamijkeena fagaaraha su'aalaha. barnaamijkeena waxay noogu martiyaa musharaxa madaxweynaha ee xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo aan kula kulanay xafiiskiisa magaalada Muqdisho. ujeedada wareysigeena ayaa waxa uu taaban doonaa xaaladda kala duwan ee Soomaaliya, khilaafka siyaasadeed, qalalaasaha, arrimihii maxkamadaha ee ugu dambeeyay oo go'aan laga gaari doono dhawaan, khilaafka galmudug, doorashooyinka ka dhacay gobolka iyo siyaasadda dhaqan-dhaqaale ee guud ahaanba geeska Afrika ku xeeran. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ku soo dhawow telefishinka MMTV Muqdisho ku soo booqanay. waa maasantihiin waa inii mahadcelinaynaa booqashadana u timaad. Soomaaliya waxaa jiray in doorashooyinku ay waqtigoodii ku dhacaan, go'aan baa laga gaaray, roadmap baa la sameeyay, 17 September baa lagu heshiiyey. doorashooyinkii golaha sare ayaa dhamaaday imika waqtigii loogu talagalay in doorashooyinku ku dhamaadaan way dhaaftay. sababtu maxay tahay? bismillaah raxiim runtii sababta ugu muhiimsan ugu weyn waxay tahay aan isleeyahay qoladii meesha talada haysay oo markii horeba aysan ka go'nayn doorasho inay dhacdo wataad ogeedo muddo 2 sano ah waxay sameysteen muddo kororsi ah oo aad loogu hor yimid marka weli ayagaan u diyaar ahayn doorasho inay galaan sideedana dalkan 4 doorasho la qabtay tan waa midii shanaad xilligii laga baxay dagaalka sokeeye markii laga baxay labana dibadda ka dhaceen mid carta lagu qabtay midna Nairobi lagu qabtay labadii kale oo dalka gudihiisa ka dhacdayna dadkii madaxda ahaa xilligaas joogay ayaa doorashadu ayaga waday oo riixaya leen hoggaan bay u baahan tahay doorashadu ay ka go'an tahay inuu ka miro dhaliyo doorashada ayagoo markaas isleh kalsooni ku qaba inay fursad ka heli doonaan ay ku soo noqdaan doorashada laakiin waxa moodaa nidaamka hadda xilligiisa dhamaaday qolada hogaaminaysa ama ninka hogaaminaya inuu rajo ka lahayn doorashada marka waxa ag jiidaya waa asaga taasaana keenta xataa in dhibaato badan laga maro in laga celiyo muddo kororsigii welina caqabadii asaga un baa ku hayaan aaminsanahay idinka laftiina waxa la idinku eedeynayaa in doorashada dibudhaceega aad qayb ka tihiin marka loo eego habka aad midowga musharaxiintu ay u diidanayeen ama ay u hor istaagayeen qodobada qaar markii kulamadu ay dhacayaan ama maamul goboleedyada lafteeda ay kulamada ka qayb galayeen maadaama dowlad guud aad ku midowdeen markii dambe taas miyaanay eed ku yeelan maya anaga marna eed ku midowso anaga maba ku jirnaba waxna ma ogtahay waa actorska go'aanka iskale anaga dadka go'aan kale kuma jirin dadka waxaan nahay anaga laakiin stakeholder aan ahay oo saamileyda siyaasaddan ka mid nahay laakiin go'aanka cidda gaaraysa anaga ma ahayn go'aanka cidda gaaraysa waa 5 dowlad goboleed iyo hadda ra'iisul wasaaraha hadda lagu soo wareejiyay xilliyadii dambe laakiin awal talada xoogeedu waxay tahay villa Soomaaliya madaxweynaha xilkiisa dhamaadaa gacanta ku hayay arrimaha doorashada marba doonta asaga meel u kaxeynay mar uu yiraahdo doorasho qof codaan qabanaya mar uu extension ama muddo kororsi aado marba meel buu noolo sabeynay doonta laakiin anagu stakeholder waan nahay laakiin dadka go'aan kale oo miiska fadhiyo kuma jiro marna ku aaday kara doorasho inaan dib u dhigna anaga marna sababtoo go'aankeeda ma lihi way doorashadan Soomaaliya waqtigan ee 2021 la filayay dhamaato ma kula muuqataa inay u gudbi doonto sanad waxaan rajaynayaa inay u gudbin ku akaato 2020 saasaan rajaynayaa sababtoo hadda aqalkiisa uu soo dhamaaday sidaad sheegtay waxaa dhimay aqalka hoos hadii la bilaabana waxaan aaminsanahay aniga ugu badnaan in bil lagu qaban karo hadii hawshaas la qabto marka waxaan rajaynayaa inay sanadka dambe nagu gelinay sanadkan ku dhamaataan aan rajaynayaa saasaana ku wada hadalnay dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha intaba in doorashada hore loo dhaqaajiyo tii labaadna hadda la bilaabo aqalka hoose wax hortaagan in la bilaaban hadii ay muuqdaan way golaha sare maadaama uu dhamaaday sidoo kale muuqda golaha sare mudanayaasha la doortay iyo doorashooyinkii maamul goboleedyadu soo u dhaceen runtii ila ma fiicnayn doorashooyinka qaar say u dhaceen ma fiicnayn dadka Soomaaliyeedna way wada arkayeen beesha adduunkana way wada arkay kuraasida la xirayay ee dadka loo xirayay in lagu tartamo la diiday meelaha qaarkoodna goobaha qaarkoodna waa lagu tartamay oo doorashada way furneed goobaha qaarkoodna laguma tartamin dadka waa loo wada jeeda marka anaga runtii nalama qumanayn meelaha oo loo xiray kuraasta meelaha soluugtay aad u adiiday anaga goboleedyada sida way hadda Hirshabeelle iyo kuraasta Soomaaliland ee lagu qabtay Muqdisho tartankooda wuu furnaa meelaha qaarkood kuraasta qaarkood wuu furnaa tartankooda
qaarkoodna ma furnayn gobolada qaarkoodna waa wada xirnaayeenba marka waxaan dhaliishanahay kuraasta la xirayo runtii kuraas fiican hirshabeelle iyo somaliland labadaba waxaa lagu eedeynaya in lacag la bixiyey oo lacago xooga loo isticmaalay taasi ma daahfurnaan baa lagu sheegi karaa ma daahfurnaan ma dhihin tartankaa furnaayaan dhahay laakiin waa daahfurnayd maan oran tartankaa furnaa arrinta lacagta ku saabsan dee doorashada ama aqalka hoose ama aqalka sare ama madaxtinimada Soomaaliya kulligeedba sharci kama yaalaba dhibaatadana haysato oo markasta aan kusoo celin xisbi aan weligan difaacayna aan doodaheeda keenayna waxay ahayd in sharci laga sameeyo isticmaalka lacagta ama maalka ama dhaqaalaha loo isticmaalo doorashada sharci ma leh dalku waa qof iyo moralkiisa marka waxaan anaga jeclaan lahaynba in laga sameeyo sharci si lacagta yaa bixi kara la siyaasad iyo lacag kala marmo waa la ogyahay laakiin la luush inuu adduunka siyaasad lacag waa lagu bixiyaa waa la socotaa milyanis lagu bixiyaa doorashooyinka adduunka laakiin dadka laba luush codka bixinaya haluushna ma siiyo campaign iyo xaflado iyo cod iyo howlo kale ku baxdaa media iyo warbaahin iyo la taliyaal iyo waxaas ku baxdaa hantida laakiin sideedaba waa in sharci laga helaa xadida maxakameeya arrimaha dhaqaalaha waxyaabaha ugu cajiibka badnaa ee dhacay waxaa ka mid ahaa inay dadka codeynayay wejiyada qarsadeen qaar ka midii inay socodkoodii bedeleen oo iyagoo dad caadi ah iska dhigeen inay jiisna yihiin waxaa dhacday inay iyagoo dad dhalinyaro yihiin iska dhigeen dad waaweyn oo sida odayaasha ay u socdeen arrimahaasi saameyn intee leg bay ku leedahay doorashada guud ee Soomaaliya saameyn nooceeda ku keenaysaa runtii markaan warsaday waxaa lagu dadka intooda badan al-shabaab ay ka cabsanayaan oo ay wejiga ay u duubteen oo sababtoo ah kaamarooyin wada live ah ku xirnaysa la socoto dad magaalada degan oo ammaan aan haysaninayna dadka u badan yihiin marka waana dhibaato ku soo socota doorashada aqalka hoose ee hadda Soomaaliya dadka ergooyinka in codayaan la rabo kulligood taas un baa sugaysa haddana laga qarinin kaamarooyinka sida hadda kaamarooyinka u furnaayeen oo kale aan la qarinin dadka waa dhibaato badan ayaa shabaabku ay dadka ku hayaan xagga ammaanka mana fiicnada anaga waxaan jeclaan lahayn Soomaaliland oo si maaragtay mug leh loo matalayo oo taasna waxay ku xiran tahay wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland soo u dhaco iyo matalaada ay Somaliland ay ku yeelan karto arrintaas saa inay ka qurux badnaato ani haddii teeda tahay way fiicnaan lahayd runtii oo Somaliland ay uga soo qayb gasho doorashadan Soomaaliya si mug leh oo furan oo dadkooda si u imaadaan ayaga ay ku matali karaan si xataa waxa ay Somaliland doonaysa nafteeda dad u matala ay u hesho laakiin iyadu weydiido waxay tiri nama matalaan dadkaasi marka meena xaq u lahayn inaanay matali karin dadka halkan ku food gareynaya ee codka siinaya ee xildhibaanada ku dooranaya maadaama ay Somaliland dadkani aanay matalin ama deegaankoodii aanay ku noqon karin lama kala bixin maxamed lama kala bixin waxaan loo kala bixin annaga waa isku jirnay hal dalan ahayn Somaliland kaligeeda tiri anaa baxay marka qaybtii kale ka baxday ayaga waa inay ku heshiyaan ama inay kala baxaan ama inay wada joogaan marka inta ka dhaxaysan saasan baa la isaga lulaan sida ay muuqato marka lama kala bixin oo sababtoo si rasmi lama kala bixin markii horena ogolaashaa la isku darsoomay haddana haddii la kala tagayeen horaan u sheegay aniga kala tagana wuxuu ka go'ahaa Muqdisho waa inay ogolaataa Soomaaliya koonfurta waa inay ogolaataa Muqdisho ogolaataa haddii la isku soo noqonayo Hargeysa ka go'a marka inta ka dhaxaysana waa la iska laalaa taasun baa la iska laalaadi way in Muqdisho ka go'o iyo in Somaliland ka go'o marka laga tago Muqdisho kama muuqato qorshe Somaliland ay kula hadasho marka loo eego wada hadallada gaabka ku jira inaanay 4 sano u dambeeyay wada hadallada galay aanay wada hadallo sameeyay oo markaliya la wada hadlay oo Djibouti lagu wada hadlay laakiin aanay wada hadalladaasi dhaqaaqin nidaamkoodu dhaqaaqin marka miyaan la oran karin Soomaaliya kama go'na wax wada hadallo Somaliland la galaa waa la oran karaa waana sax maamulada Soomaaliya soo maray qaar wada hadallada ay fureen ay bilaabeen laakiin hadda maamulka xilligiisa dhamaaday runtii iska dhaaf in oo wada hadal fure wax uu ka sii fogeynaya Somaliland uu sameeynaya runtii waana arinta anaga aad uga xunnahay laakiin sideeda waxa loo baahan yahay Soomaalida koonfurta ayadan hal ahayn ayada u baahan marka hore inay ka heshiyaan waxa ay kula hadlayaan Somaliland ayagu marka talada koonfurta taala waa tala bahsan tala hal meel taala ma taladaas bahsana u baahan marka hore inta la aruuriyo go'aan midaysan lagula hadlo Somaliland taasna ma dhicin marka intii ka horeysa qofkii yiraahdo Somaliland la hadlayaa ama wafdi u dira ama delegation u dira ma aha qof go'aan soo qaadi kara ma sababtoo ah go'aanku waa koow waxa ah marka hore inuu koonfurta ka dhaadhiciyo war Somaliland haddii aan kala tagaynana maxaan kala tagnaa haddii aan wada jiraynana maxaan ku wada jirnaa ani taasana waa qaarna wada hadalka runta ah way hogaami Somaliland ee teedo dambaysa
Somaliland marka laga hadlayo haddii Somaliland ay madax bannaan hesho ama ay go'do oo ay jamhuuriyad iskeed u madax bannaan ay noqoto maxaa dhibaatay Soomaaliya ku haysaa caqabad kow iyo laba la oran karo oo dhibaato soo gaaraysa miyay jirtaa Muqdisho waxay u baahan tahay taas waxay u baahan tahay dadka Soomaaliyeed in la weydiiyo loo bandhigay u baahan tahay opinionkii aniga ra'yiga wuxuu gooni tahay lama arka adduunka hadda deertan soo socdo oo geopoliticska caalamka iyo adduunku hadda awoodaha isku darsanaya iyo sida hadda loo kala guuray sida hadda la isku soo isbahaysanayo marka fiiriso waxa laga yaabaa dadka Soomaaliyeed inay u muuqato ama anagaba noo muuqato runtii wadajirka ka fiican kala taga oo midnimada wax lagu waayay ma u maleynaa in kala tag lagu heli karo waxa la tabanayo oo ugu muhiimsan ee Somaliland tabanaysa waa cadaalad darro waay cadaalad darrada Soomaaliland kala tabanaysa meel kasta joogto marka waxay u baahan tahay anaga waxaan u baahanahay hadda geeska Afrika hadalkaagi bilaaw ku jiray geeska Afrika Soomaaliya wada deganta geeska Afrika isbedel xoog laha ka socdo see anagoo Soomaali aan isbedelkaas uga faa'iideysan karnaa hormuud uga noo qornaa geeska Afrika ma u maleynaa arrintan in u khidmeynayso midda aad sheegayso sida imika Soomaalida Kenya Soomaalida Ethiopia Djibouti oo kale wax caqabadi kama jiraan intaba waa la macaamishaan madaxweynayaasha la macaamila halkan waa la tagaa si madax bannaan baa loo wada macaamilaa marka dadka Soomaaliland su'aasha ugu badan isweydiinaya waxweeyaan maxaad kaga duwantiin dadka sidaa u nool ee dawladaha haysta ee Soomaaliya ay dabadeedin haysta waxay uga duwan yihiin kuwaas oo dhan waxay soo fiirsadaan Soomaaliya soo fiirsadaan markay runta timaado kuwa sheegayso oo dhan waxay soo fiirsadaan Soomaaliya kuwana waa deegaano dawlado ku hoos jiraba sideedaba kuwana waa Djibouti waa dawlad yar oo miisaan culus oo isaga celiso wax isaga caabiso mantiqada aysan lahayn hadii la timaado kulligood waxay soo eegaan waa Soomaaliya hadii la sii kala jaro marka ay laba noqoto awoodii Soomaalida oo gobolka Geeska Afrika sii daciifaysa maana siima awoodeysanayso waxaan noqonaynaa dad baylaha oo kala qoqoban oo kala jirjiraan noqonaynaa taasaa u baahan midnimo wax ku heli karnaa oo ku awoodeysan karnaa oo gobolkan aan ku hogaamin karnaa runtii ani hadda maba qabo ogadeen iyo ama Soomaali galbeed ama kilika shanaada ama NFD dhulkii dhihi jiray iyo Djibouti iyo Soomaaliya iyo see intaan anaga midnimo ku sameysano oo gobolka Afrika hogaankiisa aan u qabanaa geeska Afrika la ka rabaa maahane hadda inaan dhahna anaga sii kala tagayno sii kala go'ayno sii kala ba'ayno ma filayo inay ku imaanayso kamana jawaabaysa aspirationka ama rabitaanka jiilka soo socda dhalinyarada ee Soomaalida ma ka jawaabaysa way haddii Muqdisho 30 sanadood la xalin waayay sidee fictionka inta loo gaari karaa 30 sano Muqdisho qaralaasiyo qalaanqal siyaasiyeed ku jiro waxba ma umriga ummadaha de waxba ma umriga ummadaha markii la fiiriyo ama statiska 30 sano iyo 20 sano iyo waxba ma aha Soomaalida badan hadda degdegsan oo 60 sano madaxayna oo marka u fiiriso dawladda hadda ugu cusub Western galbeedka dawladda hadda ugu awood badan oo ugu cusub Mareykanka kooka waa 200 sano marka waxba ma aha sanadaha aan tirinayna markii la fiiriyo aan ku soo noqono arrinta la xiriirda doorashada doorashadii 2016 waxa lagu galay odayaal dhaqameed soo xulayay ergooyinka 135 aha sanadkii 12 sidee baa doonaysaa imika ay kaga duwanaan kartaa doorashadan 2021 doorashadaasi odayaal dhaqameed odayaal dhaqameed 12 ergey soo xuliyay ergediya loo noqday fashilka dawladda nidaamka jira sababtoo waxaan rabnay midna odayaal soo xul 2012 midna ergaa xushay oo gobolada la geeyay oo caasimadda kaliya taala doorashada midda waxay ahayd inay doorashada intaan ka balaariso xataa haddaysan qof iyo cod aysan qaba karin oo gaari karin waxay ahayd in qaab intaan ka duwan oo ka macno badan inay doorashada u sameyso umaysa sameeynin marka waxa waaye 2016 meeshii ay joogno baan joognaa oo hadda macnaheeda wax yaala marka isbedel ma dhicin baa isbedel ma dhicin meesha baa la ajalada meesha bay taaganta way sidee dooni lahayd inay u dhacdo waxay ama qof iyo cod in dalka ay gaarsiiyaan ama hadday gaarsiin karin hanaan ka bedelan oo kuraasta iyo qaabkan qabiilooyinka la isku daro qofka candidate-ka u sharaxan xildhibaanka la dooran karo inayna gaarsiin at least la qaato waxba nooma sameeynin marka 4 sano iyo 8 bilood waxaan marayno halkii 2016 baan taaganahay ciddii 2016 soo aliftay in ergey wax lagu doorto teedii un baa hadda la joogaa waa 4 sano iyo 8 bilood oo qasaartay waxaan dhex fadhino imika golaha midowga musharaxiinta midinka sameeyey doorashadii waa digan tii hore waxba kama duwan haddana waqti dheeraad ah jiro oo extension baa dowladii ku dhacay oo dowladii waqtigiina uu socday weli isbedel ma dhicin isla midowgii musharaxiinta laftiisii ayaa leeyahay kala qaybsanaan baa jirta waxaa jira
qaarna socdaan nabad iyo nolol qaar musharaxiin oo tartamaya midowgiina musharaxnimada laftiisu muxuu ka turjumayaa haddii idinkiiba aad khilaaf siyaasadeed uu jiro hogaamiyihii doonaya inuu shaqadii ka tago oo uu idinku yidhi waxaan doonaya inaan iska casilo sheekh shali sheekh midowga musharaxiintiisa markii hore wuxuu isugu yimi hal ajanda ugu muhiimsan oo lahaa waxaa waaye dalka in doorasho nabad ah la gaarsiiyo dhibaato badan naga soo martay culays badan naga soo fuulay runtii waan kuu sheegay oo mudokorotiya la isku dayay waan kuu sheegay dalka in dagaal ahli la geliya la isku dayay weli lagama quusan rajiimka hadda jira annaga marka waxaan ujeedka isugu nimada wuxuu ahaaba in dalka doorasho la gaarsiiyo annagana aan ku tartamo intii ka tirsan midowga musharaxiinta wada shaqay karta iskaasho karta doorashadana haddaan dhammaanta iskaasho karnana fabiha wa nicma haddii qaarkeen iskaasho karana waa sidaas laakiin ujeedka ugu weynba maba ahaynba annaga inaan annagu aan noqono kudlo keligeed oo tartamaysa oo hal qof u tartamayo ujeedkeena taas maba ahaynba ujeedkeena wuxuu u dhisnaa inaan doorasho dalka gaarsiino nabadna ay ku dhacdo annagana iskaashi haddaan samayn karno aan samayno marka qofkii oo la macaamilayo qof kale iyo alliance qof la samaysanayo iyo qofkuu la samaysanayo isaga u taala eedda ugu badan la idin jeediya waxa weeyaan in midowga musharaxiintu ay reer kaliya u badan yihiin iskaashi ma deegaan kaliya u badan yihiin taas idinka dhan nooceedii samaysan mayde annaga markii la isku imaanaya yaa musharaxan fiirin marka intii taagneed ee kursiga u tartamaysa unba annaga aruurini adiga qabiilkaana tahay joog adiga qabiilkaana tahay soo gal qabiilo kalena way ku jiraan waxaan u malaynayaa waxaad tilmaamaysa waa hawiyaatiin hawiye inta ugu badan 90%. laakiin dad kalena way ku jiraan waa hawiye ahayn laakiin annaga dadkii taagnaa xilka un baan aruurino marka dee maxaan samayn karnaa dadkii taagnaa ay qabiilkaas u bateen sabab aan dhibi karna male jooga idinka soo gelina meesha laakiin ma loo kala dhinaca kalena awoodii idinkeeda ku ururtay deegaanka awoodda ninka qola kalaab haysaba haddeerta annaga ma hayne annaga dadka tartamaya sidaas u batay waxaan ka qaban karnana male cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxaa laydinku eedeynayay doorkii hore 2016 deegaan ahaan khilaafkii doorashada ee idinka kala dhex dhacay musharaxiinta deegaankeena in uu keenay in madaxweyne farmaajo uu ka faa'iideysto dariiqii muxuu muuqdaa imka mar laba markii horeba deegaan doorashada kuma gelin annaga isbahaysiga isbedel doonal dhihi jira hadda kan midowga musharaxiinta la yiraahdaa isbedel doonal la oran jiray kii hore farmaajo ka mid buu ahaa madaxweyne kala fadhiyay oo dadku siyaasadda koonfurta hadda ka jirta ama Soomaaliya hadda waxay iska tahay in dadka mucaaradka markaas u muuqda ay u midoobaan qofka kursiga fadhiya oo ay dhahaan inteena kale aan iskaalmaysano si ninka xilka looga tuuro caadada saasay ku soo socotay 12kii saasay ahayd 16kii saasay ahayd marka hayb iyo qabiilba maba ahaynba dooda meesha taalo waxay ahayd dadkii isbedel doonka qofkii u hormara in asaga codka la siiyo asagana dadka uu ka qayb geliyo hanaanka dawladda iyo shaqeynta saasay heshiisku ahaa marka baali hayb maba ahayn marka haddii imikana sideedu ku dhacday kooranta faraaruq mid la midoo leeyaysto imika ma haddana kooxdii midowga musharaxiinta nahay keenna hormar un baa la kaalmeyn haddana sidii un bay noqonaysaa baashu hayb kuma salaysan hayb fasiray waayo dad badan oo Soomaaliya aaminsan inay culays ku tahay haybto ama dhinaca u leexdeen ama go'aankii Soomaaliya doorashadeedii u deegaanka iyo deegaankaaga waxa la yiraahdo reer hebelaan ahay meel inta fadhiisano kursiga aan ka qaadanin oo hebeliyaan la siinin waa laga yaabaa hadda markii madaxweynihii soo baxay haddeertaan marka soo wuxuu ugu dheelay dad badan inay go'aasho keenaan waa dhici kartaa oo soo wuxuu siyaasadda u hogaamiyey ay go'aasho ka timaaday iyo grievances waxa la yiraahdo oo wixii inaa ku dheelay annagana ku eedo waa dhici kartaa laakiin runtii doodaas ma oolin dadka tartamayay qabiil kasta ay lahaayeen doodaas ma oolin dood qabiil arrinta la xidhiidha madaxweyne farmaajo mar aad ka hadashay waraysi hore aad bixisay waxaad ku sheegtay inaanu musuqmaasuq samayn maxaad soomaalidana musuqmaasuq baa waxa ugu badan in la isku ereeda ay tahay weli mada aaminsantay inaanu musuqmaasuq samayn hadalka waxaa laga saaray contextka laga bixiyo waana waxa lagu yaqaan in hadal aad tiri meel laga bixiyo musuqmaasuqa qaybta la gooyaa waxay tahay musuqmaasuq waa define gareeyay musuqmaasuqa ugu muhiimsan waxa waa awoodda lagu takrifalo awoodda lagu takrifalo musuqmaasuqa weyn ma jiro oo awooddii lagu aaminay inaad si qalad u isticmaasho waa musuqmaasuqa ugu weyn waaye laakiin annaga dadkeena waxay u yaqaanaan musuqmaasuqa lacagta la bixiyo qofka inuu hantida dowladda u isticmaalo dantiisa shakhsiga oo lacagoga asaga oo ka dhisto guryo ama hanti ka tabcado anigu taas ma aragaan eri
oo hadda nin inta gurigaanu dhistay ama dhulkaanu gatay ama hantidaanu leeyahay laakiin warbaahintu way ku jirtaa in hanti la gatay in dibadda laga gatay in dhaqaale la qaatay aniga ogaalkayga maan arag laakiin musuqmaasuqkii ugu weynaa waa sameeyey waxaa waa awooddii dalka ku takrifaleyba haddii marka musuqmaasuqa qeexitaankiisa la guda weyneeyo kii ugu weynaayo uu sameeyey laakiin waxaa uun lala baxay keliya uun midkii ahaa war aniga hanti hadeertaan runtii dhulka dowladda annaga magaalada waa joognaa dhul dowladeed oo hadda la qeybiyey oo dad loo qeybiyey ama asaga oo yeeshay ama hanti oo asaga laleeyahay ninkan hantida asaga iskale markaas aan hadlayay hadda waxaa soo baxay oo lagu eedayo arrimaha jaadka iyo maaha dhul keliya oo leeyahay dad ehelkiisa ha ku jiro oo jaadka hadda loo xiray Ethiopia oo laleeyahay Kenya waxa jaadka lagu joojiyay xataa maba ahaba siyaasadda waa dana dhaqaale oo asaga ay ehel yihiin ku dhex jira jaadka laleeyahay arrimaha noocaas waa dhici karta ani hadalkii inay ka dambeysay soo baxday laakiin intii aniga aan ogaa on joogay hanti la leeyahay asaa tabcaday oo dhulkaas uu leeyahay ama waxaas uu leeyahay ama walaalkiisa ama adeerkiisa ama eedadiisa leh ani maan arag ani inta aragana ka hadlaa macnaheedu ani hadda aragna macnaheedu ma aha inuu soo sameeynin ma aha laakiin aniga markii wax la weydiiyo judgmentiga ilaahana uu la xisaabtamaya wixii ani arko baa sheegi laakiin awoodda dalka in lagu takrifalo dhaqaalihii dalka loo isticmaalo in awoodii lagu takrifalo markii gudoomiye Jawaar Ridaa lacag la qaybin hantida asaga ma leeyahay hanti dawladda ah markii dawlad goboleed Ridaa lacag lagu qaybiyo waa corruption waa musuqmaasuq laakiin waxa aan ka hadlayo waa midaas specific laakiin waxa laga saaray contextkii ay lahayd marka loo eego ku takrifalka awoodooda aad sheegtay adiga weerar baa lagu soo qaaday dad baa laga laayay waxaad sheegtay oo kale Cabdi Qaydiid oo kale kamid buu ahaa madaxweynayaashii la weeraray qalbi dhagax kamid buu ahaa madaxweynayaashii la weeraray kamid buu ahaa waxyaabahaasi oo dhan waxaad adigu aaminsan tahay in mar walba cidda ku hadhay awoodda talada madaxweynaha ama prime ministerku uu sameeyay maadaama marka loo eegayo waxaasi oo dhammi dhaceen waa daliilaysay haddana markii uu khayr ka soo baxay xafiiska khayraha aad banaanka ku dhamaysateen isku mid oo musharaxiin aad tihiin marka cidda go'aan ku hadhay meesha uunba daliisha iskale hadduu farmaajo bari baxana dowladda uunba yeelanaysa systemka dowladnimada Soomaaliya runtii waxyaalaha impunity wax la yiraahdo waayo oo qaab hadda lagu wada xisaabtamo ma jiro dalka dhibaatadan haystay kamid tahay oo qofkii dib geysta ama dhibaato la yimaada maadaama wixii 4.5 wali ay iska yihiin oo ay qabiil yihiin ninkii reerkiisa unbuu ku soo kaxaysan wixii wuxuu leeyahay aniga ma samaynin waa layga sarreeyey awood kala jirtay anigu meesha go'aanka ugu dambeeya ma aan lahayn intaan fadhiya khayre iyo farmaajo keliya maaha dalkan wixii dhibaatooyin ka soo dhaco dhanba ama magac dowladda ku dhacan ama magacan dowladdeena ku dhacan dadkiisa may weli waa xor iska socdaan ma jiro marka system impunity ah adduunka wadamada noocan oo conflictga ama dagaalada ay ka dhacayaan maxkamada loo sameeyaa waa arta Burundi iyo Rwanda kulli maxkamada international loo sameeyay hatta wadamada kale ay Afrika waa la galaa arrimahooda Soomaaliya adduunkana soo ma gelin ayada markii dowladnimada ay bilowdaan inta system justice la sameeyo la yiraahdo dadkii sameeyay dhibaatada halaga tilaab sharci halaga qaado lama sameeynin marka cadaalad gudaha lama sameeynin cadaalad dibadda adduunka nooga ma imaanin kaliya waxa la dibashiin hal aad marka wax walba oo dhan dibashiin asal looga dhigay dhismihii dowladnimada Soomaaliya taasayna dadkii dambiyada geystay oo dhan ay ku dhex dhunteen marka waxa leedahay imka khayre markii uu go'aanka hayay prime ministerka waxaan ku heshiinay arinta xalka ah ee Soomaalida dhaqankeeda miska haddii farmaajo aad sheegayso shanta soo baxo yiraahdo aniga reer hebelan ahay odayaashii soo wato hal cafi haga yiraahdo haddii shakhsi inoo mucaamilad noqonay institution dowladeed oo qofkii tilaab ka qaadayo oo system noo dhisan oo qofkii lagu qabanayo ma jiro war waxa impunity-ga keenayaba impunity-gana waxa waa qofkii dambi kasta tagaysto oo wuxuu rabo iska qadhowdii aan loo raacan imika arinta la xiriidha marka loo eegay Igraan Tahliil prime ministerku ka hadlay iyo si daafnaan uga hadlay arintii qalbi dhawax horoosan oo kale loo galama hadal arintaadii san oo kale kalama hadal hoggaanka sare ee wadanku tii Cabdi Qaydiid iyo tii madaxweynayaasha oo kale hadal marka maadaama waxa soo dhan laga hadal isleeday ra'iisul wasaare Roble wuxuu kordhiyay arin aanay hore u sameyn jirin hogaamiyaashii hore ra'iisul wasaarayaashii hore waa kordhiyay waana ku ammaanaynaa runtii waan ku fiican yahay inuu gabadha cadaalad loo helo ayadii ehelkeedaba
ana laga harin maalmahan way yara dintisaa la socoto xam badanna way jirtaa waxaan rabnaa laakiin aan laga harin oo ay daba socoto laakiin waxaa dhici karto wax la yidhaha triggeraa jiro baaruudda wax qarxiyaa jiro moogtaa marka ugu dambeeya qarxinaya ikraam marka waxaa laga yaabaa wixii dambiye soo dhacayo dhan tii qarxinaysay inay ayada tahay oo ay ku qarxday ragga hadda talada haya oo waxaasoo dhan intay kasoo tallaabeen sideedana moogtahay qofka hoggaanka ah hadduusan garanaynin consequencega ficilka uu sameynayo natiijadiisa haddaysan u muuqanin oo taa imagine garay karin adiga hadda daar dheer haddaa saaranto inaad markaa ka boodo dhulka haddaa ku dhacdo inaad dhimanayso ama dhaawac xoog kusoo gaaray aadan sawiro karin dee lagaama celi kara daarta inaad ka dhacdo dadka kan marka daaro badanay ka dhaceen laakiin inta ka jafteynay istaageen marka waxay isdhaheen xaalku waa caadi marka dee mid unbay marka dambe mar unbay lugta ka jabayaan ama ay ku dhaawacmayaan marka aniga waxaan isleeyahay ikraan waa arrintii soo bixisay dhibaatadii raggan ay dalka ku hayeen taliska nabad sugidda iyo madaxtooyada dalka dhibaatada ay ku hayeen ay soo saartay ee bannaanka ay soo dhigtay hadda raggii la shaqaynaya ayaga markii ay kasoo dhex baxeenna hadda shaqadii waa sii socotay mogta waxyaalaha hadda oo inkastoo waxaa ula jeedaa khayra hadda sheegtay anigu mali hadda dembi ou leeyahay iyo male arrinta ani ka hadli maayo lakin waxaan ka hadlaya waxay tahay meesha markuu ka soo baxay dagaaladii iyo weeraradii way sii socdeen marka yaa sameynaya kulato waa dee madaxtooyada marka way muuqataa way taliskii nabad sugidda malihi aniga intii waa lagula xisaabtamaya mas-uuliyaddiisa oo lahaa laakiin waxaa ii muuqda markuu isaga meesha ka soo baxay kabacdiyaa madaxweyneyaasha la weeraray kabacdiyaa muqdisho dagaal ka dhacay kabacdiyaa asagii anagoo mudaharadeena la weeraray kabacdiyaa ikraan keeskeeda soo baxay dad minis waxaa waaye dee meesha asagu wuxuu ka ahaa nin oo shaqada wax ka fulina laakiin shaqada dadka wadaaho waa sii wadeen shaqadii waa sii socotaa hawshii ma sii istaagin yani waxaad leedahay wixii aanu ka cabanayna ama dhibaatooyinkii lahayay baa sii ayaa weli hadday joogsa lahaayeen waxaan dhihi lahaa war ninka fidnadooda waa ninkan buu ahaa mogta laakiin hawshii sideedii dagaaladii iyo weeraradii iyo dhibaatadii sidii usii socda maxaad adigu ka aaminsantahay keentaa may nooshay may dhimatay maxaad aaminsan aniga dee xogta intaan haayo qofka bini aadamka wuxuu ku go-aan qaadanaya waa xogta intaan haayo ma ku ogi nolol yaa dilay baad samey taliska nabad sugidda shaki male maxaad ku sababeynaysa waxaan ku sabaynaa kow ayagaa baabuur ku qaatay maogtahay anigu hadda maxkamad ma fadhiya qaadima laakiin looga waa lay baray evidenceska labay waaye hard evidence wax la yidhaahdo cad oo dee banaanka yaala iyo circumstantial evidence wax la yidhaahdo oo bayinaati darfiya moogtahay wax la yidhaahdo oo muujinaya waxaan inay yihiin wax wixii la eg sida waxaa markii culummada ka hadlayaan ama chargeska islaantii damacday inay nebi yuusuf kufsato ninkii markhaatiga wuxuu yiri haddii khamiiska hore ka dilaacsan yahay dee haddii gadaal yahayne taasi marka bayino cad ma aha oo qof arke ma aha laakiin waxaa la yidhahdaa circumstantial waa bayino darfiya la yidhahda waa mid u muuqan karta waxyaalaha aan aruurinay annaga oo bayinaati darfiya ama circumstantial evidencega la yidhahdo waxay muujinayaan inay gacanta niisa ku maqan tahay kow baabuurkooda lagu qaaday ayagay u shaqaynaysay ayagaa qaaday ma aysi sheegin way qariyeen markii ay 26kii waxaan u malaynaya juun ay ahayd habeenka gabadha la qaaday ilaa iyo hadda aan soo gaarnay markay sheegayeen bilowgii September Soomaaliya markay sheegeen ay dhaheen shabaabaa dilay intaas ayaga hayay dadka waxba uma sheegin waalidiintood ma brief garaynin waxba ma si sheegin marka xogta aan helayana mar raba hadda dadka madaxda dawladda kamid ah hebel aan ka helay inaan dhaho qaarkood waxaa loo sheegay inay gacanta ku maqan tahay niisa maxkamad baa arrintaa la geeyey maxay ku dhammaan kartaa basleed maxkamadaas ilaa adiga yidhi Soomaaliya cid wax loo xukumayaa ma jirto nidaam dambi lagu qaadaa ma jirto waxa dhow qofkii dhibaatada geystay lagu xukumaa ma jirto hadduu odayaal soo kaxaysto caawa farmaajo ku dhaw wixii way dhamaadeen siduu aad khayraba u sheegtay way dhamaadeen unbay ka dhigantay marka maxkamadda lafteeda haddii maxkamad la helo maxaa micneey samayn kartaa maxaa ka soo bixi karaa maxkamad waxa dee mar maxkamad tagaan way ka duwanta waxaan sheegay dhan waxaa maxkamad tagin waaye mar haddii keeska uu maxkamad tago maxkamadda gacanta ku hayso waxaa la ii sheegay baaritaankii ay samayn lahaayeen in laga hortaagan yahay oo hay-adda nabad sugidda ay weli ka hortaagan tahay because waxa ugu badan ama kaamarooyinkii ama cadeymaha intooda badan nabad sugidday dhex yaalaan nabad sugiddiina waa loo diiday inay access u yeeshaan ama galaangal u yeeshaan ama ay dhex galaan waa loo diiday dadkii maaragtay hawsha waday marka keeska doo mar marka maxkamad tago marka waa maxkamadoo tegey aniga waxaan ka hadlaya waxaan maxkamadaha tegin
aduu maxkamadda sugdigii berigii tegey waa maxkamad waa lay diiday aniga dee laakiin maxkamadda waad ka taas dowladda ay geysatay maaha ani ma dacwoon in dacwadii waa laakiin adiga laakiin maxkamadda waa tagtay tii dowladda i geysay waaye rajiim nidaamku soo igey waa laakiin aniga taydii waa la diiday in kayskii lagu furo waa lay diiday waay arrinta la xidhiidha guriceel iyo dhuusamareeb wasiirkii amniga iscasilay axmed macalin fiqi baa iscasilay deegaankaagii weeyaanad ka soo jeeda adu khilaaf baa u dhexeeya ahlu sunna iyo dowladda galmudug ee qorqoor hogaaminaya madaxweyne qorqoor arrintaasina waa markii labaad soo noqonaysaa khilaafka iyo qalalaasaha iyo weerarka dowladda galmudugna ahayd dowladihii ugu dambeeyay la dhiso maxaa sabab u ah waxaa sabab u ah dee waxyaalo badan factoriska dee runtii waa badan yihiin galmudug waxay u kici ladahay wax badanaa sabab u ah waxaa kow ka ah dee horena waa u sheegay galmudug iyo hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxay ka tirsan yihiin dowladda dhexe markii horena dowladda dhexaa dhistay dowladda federaalka dhistaan ka wada ayaga dhanba oo dadka inta fursad la siiyey ayagu ma tartamin sida deegaanada kale dowladda federaalka ha dhistay dowladda federaalka ha dhaqaalaha siisa dowladda federaalka ciidanka siisa dowladda federaalka wax badan wax kasta u haysaba marka waa dowlado satellite u ah dowladda federaalka ah tan keliya maahane kuwii ka horreey markii la dhisayna saasay ahaayeen marka ma gaarin weli inay yeeshaan hanaan ayaga isku filan kow oo maamulkooda iyo miisaaniyadooda iyo ciidankooda iyo structurekooda kale ee maamul dad madax bannaan inay noqdaan ma gaarin markasta marka waxaa saameynta ugu badan ku leh dowladda federaalka ku leh waa qodob midda labaad ahlu sunna iyo galmudug aniga waxaan aaminsanahay dowladda galmudug inay tahay dowladda la aqoonsan yahay sida sharcigaana ku dhisan hay-adaheedan ay dastuuri yihiin waxaa qalada in awood kale ay ku dhexaysato hub waa qalad laakiin dowladduna inay dhahdo awooddaas waxaan ku maquuninayaa qoray ayadana aniga lama saxsano waa qalad waxaa la rabaa in laga wada hadlo sidii labadaas awoodood ama awoodda ahlu sunna waa inay garawsadaan in aysan ayagoo awood jirta ahayn oo hub haysta isku dhexaysa karin dowladda galmudug dowladda galmudugna waa inay wada hadal iyo nabad ku gaartaa ama ay fursad siisaa arrinta wadahadalka iyo nabadda ilaa la gaaro in looga caal waayey inay arrintan diidaan dadkan inay gaaraan haddii aynu cabdiraxmaan cabdishakuur warsame haddaynu laba dhinac ka eegno galmudug waxaa tiri waa sharci daro in hubla ku dhexayso oo aan dowladda ku dhexaysato dowladduna inay dadkaasi maaragtay ay la hadasho idinku markaad musharaxiin tahaydeen muqdisho waxaad la baxdeen badbaado qaran hub iyo ciidamo ayaad ku dhex qaadateen dalka iyo dadka maxay ku kala duwan yihiin inay kooxdaasina ciidan iyo hub haysato idinkuna ciidan iyo hub aad dowladdii kala hortagteen sideebaad keeba adiga kula qurux makiina qurux anaga awood dowladda kasoo horjeeto hub haysata ma ahayne ciidankii xoogga dalka naftiisa soo baxay qayb ka mid ah oo diiday muddo kororsiga laakiin idinka hogaamiyey ciidankii siyaasadiina isla halno ciidankii xoogga dalka qayb ka mid ah waxay tiri waxa kan waa unconstitutional sharci darro waaye madaxweyne mandate-ka waa dhoobtay stop halkan ku istaag ayagaa dhahay annaga ma rabnay haa waa rabnay laakiin annaga awood parallel ah oo ciidan haysato dhahaysa dowladdan la dirisan oo systemkan la dagaalayna annaga ma nihin saas daraaddeed not only galmudug keliya maaha walaa puntland walaa jubbaland walaa maaragtay south west meel kasta ahaato awood kaloo hubaysan oo ka hor imaanaysa dowlad goboleedka anigu ma ogoli sharcigana ma ogolaba laakiin in may tana ciidankii xoogga dalka waa wax furmaha ka soo baxay annaga ma ahayn laakiin annaga waxaan leenahay awooda lagu maquuninana sax ma ah waa in waqti la siiyaa wada hadal ay ku ogolaadaan hubka inay dhigaan oo ay dowladda qayb ka noqdaan waana la sameeyey hadda ka hor haddana in la sameyn karna aaminsan adiga waa deegaankaaga weli ma tagtay 10 jeer aan tagay hadda inta karaaska inta khilaafaadka waxaa ku tegi kartaa inay laba dhinac ogol yihiin fursad dhexdhexaadina inaad weli biseelkaas ma jiro marka loo eego madaxweyne qoorqoor iyo cali guudlaawe iyo lafta greenba saddexda marka isku qaado waxaa tiri dowladda dhexe ayaa abuurtay markan idinku musharaxiin tahaydeen in cali guudlaawena waa taageerteen madaxweyne qoorqoorna waa taageerteen
lafta green waxaad ku eedeyseen xukunkiisa inuu dhiig ku daafay taasi miyaana eex ahayn maya annaga qofaan taageerna gooni qofaan gooni kasoo horjeedna ma jirno tan aan ku leeyahay intaa laga dhisayna dowladdan keliya maan kuwii ka horreeyaba meesha laga unkayba sideedaba laakiin annaga wax kasta oo dee doorashada waxaan ka hadlayna waxaa waa doorashadaa dhiig ku daatay doorashadiisa dhiig ku daatay saddexda nin bisaa sheegay dowladda federaalka waday laakiin doorashadii qoorqoor doorashadii guudlaba dagaalka ma dhicin waxaan ka hadlayna waxaa waa doorashada marka doorashadii qoorqoor doorashadii guudlaba maadaama moon dagaal ka dhicin miyaana iyaga laftooduba awood la isku soo muquunin oo cali guudlaba in la geeyo beledweyne ayna culays noqonin waqti qaadano aanay hawl dheer beledweyne maba la geyn haddana ma tegin waxaan ka wadaynaa markii doorashada jawharka dhacaysay keliis inuu tartamaa u malayn hadday xusuusteeda qaldaneen oo aysan annaga waxaan ka hadlaynaa waxa la sameeyey sax ma ahayn oo dowladda dhexe waana sheegaba dowladda federaalka ah labadii doorashay ka horreysay midda qoorqoor iyo midda cali guudlaawe oo ay ku soo baxeen waare iyo xaaf dowladdu ma faragashan way cusbeed maarse aan ku xasuusiyo ma isa faragashanin wax dhibaataa kama dhicinba xataa qarash badan kuma bixin dhibaato badan shiddo badan ma dhicin xaafin si sahlo ismuuda loo doortay waaraan si ismuuda loo doortay runtii sababtoo wax kalena ma ahayn dowladdan faragashanin dhexe oo federaalka laakiin idinka laftiini mucaaradkii qayb ka mid ah ka qayb galay dhismayaashii dowladda ka qayb gal la taliyaal ka noqday dowladihii galmudug iyo hirshabeellaba qayb ka noqday taas markaa maxaa dowladdu inay dhisateen idinku wada socoteen anaga waxaan nidhi wixii inkastoo sidii la rabay aan loo dhisin haddayba deegaankii waxu dhisi maayaan horaha loo socdo waa midaan ka aadnaba annaga laakiin mar kastoo la isku daya in dagaal iyo dhiig la daadiyo annaga taas waa midda aan leenahay maya way arrinta la xidhiidha soomaaliya ee dhaqaalaha iyo wadamada dunida ee ku tartamaya marka si guud looga hadlay soomaaliya waxaa ku tartamaya siduu sheegay xildhibaan cabdiqaadir maxamed xasan indho oo baarlamaanka Soomaaliya kamid adduunyada Soomaaliya gudaheeda isma hayso wadamada lagu eedeeyo waxa kamid ah Imaaraadka Qatar Saudi Arabia wadamadaas lagu eedeeyo adigana in aad la socoto dowladda Imaaraadka ayaa lagu eedeeyo ma jirta arrintaas shakhsiyan dowladda laakiin xukun baa doonaysayo hogaamiyaasha iyagoo dibadda joogay dad la socdaano dad qaar badan dad ku dhiseen iyagoo xagga dambe daahday waxaana fahamsanayn banagerka dowladaha ku shaqeeyaan markaas war dowlad shakhsi lama macaamisho bikaa shakhsigaan ani minuu isbedela meesha roo aadi karaa xaguu ka miisi karaa intuu ka miisi karaa dowlad shakhsi lama macaamisho dowlad institution la macaamisho war dadka Soomaaliyeed yaa leen qaldin war dowladuhu shakhsiyan lama macaamilaan Soomaalida ayaga dowladnimadii shakhsi ka dhigay markaas waxay u maleeyaan ummadaha kale inay sidaas yihiin war dowladuhu institution la macaamilaan waa laga yaabaa xataa haddaa tahay coalition ama alliance oo kala duwan iyo wax institution agaa tahay laakiin qof la leeyahay iliga aniga iyo caleema saaran war ilig berius bedeli karaa meesha uu ka dhici karaa qolo kale oo aadi karaa dowladuhu saas kuma shaqeeyaan dowladuhu sideedaba waxyaalaha bini aadanka emotionska kuma shaqeeyaan ama caadifada ama jeclaysiga ama necbaashaha maaha waa impersonal waxa la leeyahay dowladda mataqaana impersonal waa impersonal dowladdu qof maaha waa institution dana jaangoysa marka laakiin danta dibadda ay kusoo wada dhistaan soo maaha oo qofkii dibadda joogo institutionka ku jirin ayaa banaanka lagu wada hadlaa banaanka afkaarta lagu dhamaystaa markaas qofka lagu dhisaa inuu tago institutionka la doonayo in wax la dhaxlo damaanad qaadaya dowladda horjeeda doo bari oo la qabsado maxaa damaanka haysta waa maxay ma haysataa damaanka taas waan ku leenahay waxay ku leeyahay Mareykan maxay naga rabaan Soomaalida markay madax noqdaan Ingiriis maxuu naga rabaa Talyaani maxuu naga rabaa Faransiis maxuu naga rabaa dowladda dariska maxay naga rabaa adduunka institution la macaamilaa fiir hadda Kenya iyo anaga waa kala duwanahay adduunka soo la macaamilaa Kenya adduunka institutionkeedu la macaamilaa tusaalaan ku siinaya ama intelligence-ga ahaato ama military-ga ahaato ama civil servant-ga ama silkii diplomat-ka adduunka institutions la macaamilaa qof lama macaamilo waa ogtihiin Uhuru Kenyatta maxkamada la geeyay oo ka soo garbaxay qof adduunka lama macaamilo Kenya waa investment ugu xoogan iyo interest ugu galbeedka ay yaal hadeertaan sababtoo ma taqaana institutions laga macaamilo war Soomaaliya institution la macaamilo male qofaas socdo qofkana maanta bari intuu aadaya bari dambe intuu aadaya waa ka hadda madaxweyne Farmaajo shalay wuxuuna lahaa anti Ethiopian hay Ethiopian ka soo horjeeda Kenya base ahayd markuu doorashada galay maanta wuxuu leeyahay Ethiopia xalaal oo fiican abay waa brother Kenya xun oo waaw qofka Soomaaliga is bedelay hadi yaa wax ku darsanaya qof hore gadaal u socda adduunka wax ku darsada institutions waay qofkaas ma fahamsana dhahaya hebel iyo hebel dowladda taageersan qof wax fahamsan waay Imaaraadka iyo Qatar iyo Sacuudiga way heshiiyeen
marka laga imaado adiga ta lagu soo jeedinaya inaad imaaraadka la socoto farmaajo iyo fahdiina ay la socdaan qatar heshiiskoodaasi soomaaliduna way u kala dheerayn jirtay wadamadaasi ma laga yaabaa idinkuna inaad gudaha ka heshiisaan maadaama iyaguba heshiiyeen horta waa inaan isweydiinaa qatar iyo imaaraad iyo maxay u heshiin haddayba heshiinayaan anigu kulamo dhexdhexay iyo las arkay waxaas heshiisaya tahay ma aaminsani laakiin maxay u heshiinayaan waxaa ku jirta turki gobolka ogta waxaa laisku haystay turkida iyo qatar oo dhinaca iyo sacuudi imaaraad iyo egypt iyo masar oo dhinaca saasa middle east hadda laisku haystay iiraan oo dhinac taagan iyo israa'iil oo dhinac kala taagan gobolka haddaan bariga dhexe aan define garayno waa saas maxaa keenay waxaa keenay waxa la yidhaahdo Biden administration phenomenon ninkan madaxweynaha cusub ee Mareykanka madaxda ka noqday Joe Biden la yiraahdo aragti cusub oo la yimid oo la yiraahdo South Asia arintaas waxaa deertaan walwal ay ku haysaa oo har iyo habeen ka dooda midowga Yurub oo leeyahay Mareykan waa naga sii jeestay wuxuu u jeestay China oo South Asia gaar xagga soo aaday Mareykan South Asia aaday maxaa anaga noodan waa ka hadda barnaamijkan la yiraahdo asaga iyo Australia iyo New Zealand Ingiriiska ay ku midoobeen Francisco ka carooday European Union hadda waxay taagan yihiin war Mareykan waa naga jeestay sababtoo Joe Biden campaign wuxuu ku soo galay Mareykankii hore maaha Mareykan wixii la dhihi jiray NATO iyo Europe dabada la galaya oo xilfigii ama alliance-gii soo ceshanaya ma dhicin duruufaha xakamaysa siyaasadda arrimaha dibadda waa ku sheegay jacayl ma wax Europe iyo Mareykan isaga dhow male China aaday Mareykankii European-kii hadda waxay ka hadlayaan see annaga amnigeena iyo awoodeena iyo Mareykan kuma hadlay karnaa see annaga aan u noqonnaa awood jirto is ilaali karta doontaas hadda socoto saas oo kale bariga dhexdooda waxaa timid war Mareykan waa awleen damaanka ugu weyn oo haystaan dowladahan qariijka iyo xoogooda waxay ahayd awoodda Mareykan la isku hadlaynay Mareykan meesha waa ka socdaaye maxaa anaga noodan taas waa midda markay isku keentay inay xataa wada hadlaan Turki iyo Masar oo hadda advance maray wada hadalkooda ay Sacuudiga iyo Turkiga wada hadlaan oo Turki iyo Imaaraad wada hadlaan oo Imaaraad iyo Qatar wada hadlaan oo Qatar iyo Sacuudiga wada hadlaan Middle East waxaa yimid vacuum cidii ilaalin lahayd awoodda aan jirin waana ku sheegay labada awoodo ugu tunka weyn bariga dhexe waxa waa Israa'iil waxa waa Iiraan waxa soo sadeeyay Turkiga iyo Egypt masaarida waxaa la yiri Mareykan meesha haduu ka tago maxaa noodan halkaas ku socdaan maahane Soomaaliyana wax weyn oo hadeertaan dowladahaas amaankooda ama security-gooda ugu xiran maba jiro sideedaba annaga isku haysan in adduunka dhan oo noo keen haystee wax weyn oo adduunka hadda annaga nooga xiran ma jiro adduunka Mareykan hadda wuxuu iska ilaalinayaa waa China wuxuu rabaa inuu ku haayo South Asia meesheeda inuu kula haayo rabaa awoodeeda ku xakameeyo aysan ku soo baahin adduunka طبعا ruushka dhibaa waa jira Mareykanka laakiin sida China looga cabsanayo soo taana dhaqaalaha iyo awoodda iyo ciidanka ay leedahay oo kale ma leh ruushka waa mudug sooftiyay markaas uu macno lahaa arrinta aad carabka ku dhufatay in waxyaabaha la isku haya ammaanka gudaha yihiin alliance-kii wixii ay isbedelayaan doorashada danaha Mareykan iyo danaha Saudi Asia iyo kan bariga dhexe uu isbedelayo qayb waxa kamid Masar iyo Turkiga oo la wada dagaalamaya mabaadiida ikhwaanka oo dhinac Masar iyo Suudaan oo dhinac heshiis kula noqday Ethiopia ikhwaanka dad badan oo Soomaaliya aaminsan yihiin Turkiga Soomaaliya gudaheega aad buu joogaa saameynta leeg bay ku leedahay sida Turkiga in ogaano waaye Turkigu waa dowlad strategic interest ku socota dad badan oo Soomaaliyeed oo ka xumaa waxay ku qaldan waxay u maleeyaan inay walaaltinimo iyo islaamnimo iyo ehelnimo Turki wax daraaf gareynaa ay tahay maaha inta anaga carabta nooga dhow isku dhaqan iyo diin iyo islaamnimo wax kasta ay tahayba Turkiga safaaradda weyn oo ka furtay Soomaaliya strategic interest-kiisana waxa waaye Africa gateway oo ka maro Soomaaliya inay noqoto waana wax uu talagalay asaga dantu kaliya taas waaye kana furtay saldhig military hadii oo fursad arintaas loo helayo Erdogan hadda maamulkiisana arintaas hadeertaan asal u fiiri Turkidu Israa'iil safaaradeeda ka furan dadka Israa'iiliyiinta Turkiga Switzerland ku tagaan ayagii Israa'iil xiriirkooda caadi waay laakiin madaxweynaha markuu qodbeynayo waa anta Israa'iil laakiin intelligence-ga Israa'iil iyo sirdoonka Turkiga iyo ciidanka Turkiga ciidanka Israa'iil iyo dalxiisayaasha iyo labada dal kullu isku wada furan yihiin Soomaalida marka wada iska caadifiin rhetoric-ga Xamaaskaasi inta badan ay fiiriyaan Turkiga waa dowlad xoog leh lamid baa dowladaha yaryar hadda khaliijka strategic interest ya daraaf gareeya
inaad akhwaan muslimiinta inaad ahayna danka ma laha danteeday daba socotaa haddaad marka madax tahay adoo emotion waana taan kuu sheegay dowladuhu emotion ma aha walaaltinimo iyo naxariis iyo kalgacal iyo walaal iyo ehel waaye ma aha danay daba socdaan dowladuhu dantaas dii laga arkaan ahlan wasahlan haddii laga waayan ahlan wasahlan suudaan iyo hadda masar waxaa isku keenaya waxaa waaye etoobiya waaye arrinteeda soo maaha etoobiya labadu hadda dhinacay ka yihiin ay dhinac ka yihiin maana wax ayaga labadooda khilaafa ka dhexeeya dhul isku haystaan suudaan iyo masar waa la socotaa rejiimkii hore bashiir iyo masaarida bashiir wuxuu la ahaa alliance wuxuu la ahaa ethiopia nimankii tigreega meesha ka tegay tiimka maxaa keena marka nimankan amxaarada ah ayaa suudaanta dhul ku haysta dowladda hadda etoobiyana saad la socoto power centerkeeda hadda yartaan awoodeeda waa amxaarada waa qabiilka qowmiyadda la yidhaahdo ayaa u ah center hadda u ah oo arday kabineetka wax ugu badan ay ka qaateen awoodda ugu badan ay dowladda leeyihiin abbay kuma taagnaa qowmiyadiisa ormada wuxuu ku taagan yahay qowmiyadda amxaarada marka ayagaas suudaan iyo conflictigaas ayadaa dhexgeliyay suudaan oo bakasa deegaan isku haystaanoo oo ay suudaanta kala dhexeyso taasaa sababaysa marka alliancega gobolka waa shifting alliance la yidhahda marba uu isbabedelayaa marba dhinac u guuraya marba dhinac maxaa laakiin guuritaankaas keenaya maslaxada iyo darfiga markaas taagan yaa jaangoynaya adiga marka soomaaliya haddaa leader ka tahay geeska africa dadka ugu badan deganna dadkaaga ay yihiin ugu badan yaan dhihin laakiin meelo kala duwan ay soomaalida degan tahay ama kenya ama etoobiya ama maaragtay jamhuuriyaddii soomaalida ama jabuuti waxaa laga rabaa soomaalidu hogaamiyaashooda meel kasta ay joogaan inay aragti ka yeeshaan see isbedelkan cusub ee bariga geeska africa ka yimid soomaalida looga faa'iidey karaa aan ku soo noqono arrinta aad sheegtay ah in turkigu doonayo meel uu ka galo africa dagaal dhaqaalaas africa ka socda guud ahaan marka laga hadlo geeska africana saameyn xoog ku leh inuu china imaado kenya inay ethiopia imaado china inay haddana imaadaan dekada jabuuti inay imaaraadku tago dekada berbera in turkigu imaado dekada muqdisho yani waxyaabahaasi oo dhan ay ka jiraan meel cid walbaaba ay fursad ay ka hesho marka dagaalka dekadaha iyo dhaqaaluhu saameyn intee leg buu kusii yeelan karaa geeska africa ama qalalaasihiisa dhinaca siyaasadda saameyn weyn ku leeyahay dagaalka sidoo geopoliticska saddex arrin ah dhifaan garay sidiisaba waa run dekadaha waa qayb marinada adduunka checkpointska waa qayb ama mandab ha ahaato ama Suez kanaal Suez ha ahaato meelaha adduunka la isku maro marinada muhiimka ah oo dhan waa qayb oo ama shidaalka la mariyo ama badeecada la marsiiyo saldhigga militariga saddexdaas ah iyo energy-ga meesha laga helayo hadda inkastoo adduunka hadda laga bixi rabo shidaalka iyo macdanta iyo waxya meelaha laga helayana waa qodob kale oo dhifaan gareeya ka tartanka geopolitics sax waaye geeska africa intaas muhiimada uu leeyahay shidaal waa ku jira macdan waa ku jirtaa checkpoints waa ku yaalaa muhiima ama waxaan kala goyska adduunka laisku goosho saldhigyo militariya ku yaalo oo hadda china saldhig militariya ku leedahay jabuuti oo maraykan ku leh oo yurubiyaanki ku leh marka intaba waa run dhinacaas markii la fiiriyo muhiimada aan ka leenahay waxay ku xiran tahay marka muhiimadaas ee looga faa'iideyn karo waa midda aan ku leeyahay xoogga soomaalida ee gobolka yaala waa inuu midaysan yahay oo annaga markaan soomaali ahaanahay wataan ku leeyahay haddaan sii kala tagtagnana macno ma samaynayso laakiin markaan mid nahay aragtideennana ay midaysan tahay geeska africa waxaan noqon karnaa awood formidable oo la ictiraafsan yahay oo la yaqaano saameynta ugu badan ku leh aan noqon karnaa taasaana uga jawaabi karnaa aspirationka ama rabitaanka jiilka soo kacaya soomaalida sidaas 70% waa dhalinyaradu wixii hore u dhacay ma yaqaanaan adeerkaya la dilay aabaha geel laga dhacay waxaas dhan kama leh future-kay fiirinayaan muxuu asaga ku noolaan karaa nolol fiican ma heli karaa dignity ma heli karaa karaamo ma ku noolaan karaa sharaf iyo dadnimo oo dadka kula tartama ma leeyahay aspirationkiisa ama shaqo ama nolol ama inuu nolosha ku raaxaysto ama uu helo waxa ultimate objective-ka bini aadamku ah self actualization inuu qof macno la noqdo ma heli karaa raadinaa maahane haddaa taariikh iyo gabayo iyo waa la isdili iyo maxaa la yidhahdaa uga sheekaysa maanta oo dhan wax macnaha u samaynaysa ma laha dhallinyaradaasna waxaa u jawaabi karo hoggaan ka yimaada gobolkan oo uga faa'iideeya potentiality-ga iyo fursadaha dadka Soomaaliyeed ay ku haysan geeska Afrika arrinta ammaanka marka laga hadlo dhalinyar baa loo diray Eritrea dhalinyarada loo diray waxay sheegeen dagaalka ka qayb qaatay eedo badan ba soo jeedisay halkay ku dambeysay eedini iyo arrintaasi inaad si xaqiiqaad u ogaataan
iyadoo warbixino caalami ay kasoo baxeen dagaalka qayb ka qaateen inaad arrintaasi banaanka dhigtaan oo meel ku gaadhaan runtii dee annaga intii aan ka hadli karno ama intii aan abaabulka samayn karno ama intii aan xogteeda raadin karno waan raadinay dhalinyarada ilaa hadda way maqan yihiin nidaamkii meesha joogay ee ka talinaya waa diiday inuu ka hadlo laakiin inuu soo celiyo waa diiday xogtooda inuu keeno waa diiday eeadahaas UN-ka ay kamid yihiin iyo dowladda Mareykanka oo sheegtay in dhalinyaradaas dagaalka ka qayb galeen waa cadeymo wixii dhammaydee meeshan waxaa yimid rejiim waxaa jooga waxaa rabta sheeg waxaa rabta yeel aniga dhegeygaan furaysana waxaan rabaa samaynayaa meeshii aan noo fadhiya laakiin dhalinyaradaas waa maqan yihiin ehelkoodii ka maqan yihiin waalidiintoodii ka maqan yihiin dhibaataa haysata way dhibtoodaan xogta aan ka hayno dhulkaa lagu beeraha lagu fashaa guryaha lagu dhistaa aada loo ciqaabaa intii kasoo baxsataana sheegtay aan la kulanay annaga oon aragnay oo wax noo kaga sheekeynaya ma aha nidaamka hadda jiraana ka mas-uul ah faylka loo kaydinayo inuu kamid yahay dhalinyaradaas ay dayaceen oo inay deegaan kale ka dagaalamaan ku kalifeen oo ilaa hadda haddii aysan dhab ahayn inaysan deegaan kale ka dagaalamin ama dagaalkaas aan loo rabin ma la keeno 2 sano ziyaaday marayaan ma la soo celiyo ma jirto marka qarankii Soomaaliyeed oo dhanaa waxa laga dhigay calooshu shaqayste dowladdan ay ka dhigtay waana khiyaano qaran tii ugu weyneed weli taasina xal lagama gaarin lama keenin wax cad ma jiro sida doodiinu mar walba ay tahay iminka ciidamada loo raray galmudug oo galmudug baa la geeyay weli ammaankii ma kula tahay in ay gacanta ku sahayso xukuumad madaxweyne farmaajo gacanta ku hayo oo sidii looga heshiiyey doorashada ahayd in ammaankii doorashadu ra'iisul wasaaruhu qaabilsay aanay jirin waa sax waay haddii waxa ciidanka raray ee asaga yihiin ra'iisul wasaaraha gacan kuma hayo arrin ciidan iyo doorasho gacan kuma hayo asaa la rabaa inuu caddeeyo inuusan arrinta asaga uu yahay qofka haddii uu raray asaga inuu mas-uuliyaddeeda qaado yidhi anaa raray hadduu usan rarayna uu dhaho inuu soo celiyo asaa laga rabaa uusan dhihin ciidankaas aniga ma rarin caddayn waxay u tahay weli inuu farmaajo ammaanka gacanta ku hayso waa sax way iminka waxaa la isku hayaa wasiirka amniga xudubey baa halkan cabdullaahi nuur baa halkan isaguna labadoodii haddana taliyeysi doonka hebel iyo hebel baa maxaad u aaminsantay yaad u aqoonsantay shaqada waxaan u aqoonsanahay dee meel cad oo horta madaxweynaha mandatekiisa waa dhammaaday waqtigiisii farmaajo waa dhammaaday rooble anigu waxaan aqoonsanahay article 103 oo constitutionka 103 inuu yahay xukuumad xilgaarsiin ah taas waxaa u dheer markii dagaalka dhacay oo la isku hor yimid madaxweynaha xilkiisa dhammaadsaa baarlamaanka tagay maalin cad wuxuu yidhi ammaankii iyo dalkii awooddiisii iyo siyaasaddiisii iyo doorashadiisii ra'iisul wasaaraha ku wareejiyey annaga wixii intaas ka dambeeyey aniga laiima sheegi karo lagala macaamili karo dhahay annaga waxaan kala macaamilayn ra'iisul wasaaraha marka cidda uu iska bedelayo oo la shaqey karo cidda uu la shaqey karin iyo keeska niisana waa la socotaa gabadha ikraan iyo arrimo badan oo kulug leeyahay kaas haddana waa ogol yahay naftiisa ninka xilkiisa dhammaadayba inuu laga bixiyo ninkii meesha joogay laakiin ninkii meesha joogay in laga bixiyo ogol nin kale ma keeni kartid see u shaqeynaya ra'iisul wasaarihi marka ra'iisul wasaaraha qof meel ka bedeli kara amni qof kala geey kara soo doorasho dalka uu qabanaya ma qaban kara dee waxaad uga jeedaa ninkii meesha joogay inuu ka bixiyo ma dee waa la bedelo soo ninkii taliyana mas'uuliyadda ahaa hadduu ogolaaday farmaajo in la bedelo taliyana mas'uuliyadda oo ra'iisul wasaaraha ka ogolaaday hadda aqligu wuxuu keenaa ka la magacaabay asaga inuu keeno maxaa diidan inuu asaga keeno markaad waxaad leedahay waxaan aaminsanay wuxuu tallaabooyin ku qaaday ra'iisul wasaare Roble haye saxsiin sax waay ayaad ku aaminsantahay boqolkiiba marka halkaas aad u aqoonsanaysaa way taasi ma keeni kartaa marka inuu awoodii iyo nidaamkii iyo ammaankii iyo doorashadii isagu maamulo oo fursad badan haysiiso taas waa midda lagu heshiiyey oo annaga markii laakiin ma muuqato baa tiriyay markaa sidee u keeni kartaa taas hadda waa in asaga uu ku adkaystaa oo taliyihiisa mas'uuliyadda wasiirkiisa amniga ay shaqeeyaan soo doorasho u qabto أنا تان أمسنا تاس وايبه. يجي خلاف كان جذوه جاي. هالكو كده مانع بيكون. خلاف كان وكده مانع دورشة دي اللي هذا واسكنا مانع دورشة هلا. وجور ملاذ. هذا وحال روا قلها وتشي قرنا كربنا ودور الجوير رزارة كوجيران دورشة إني هرق ودان. هديك الدلك المسؤولية دي أي كده عيسى هدرتان. وطايقة مسؤول كان دلك هدرت. وجورياش وتشي قرن قار كم يدي ولي ما يندم يسترين هنانك اللي جود دورني mudanayaashii laga soo dooranayay senatarada ahaa ee maamul goboleedyada iyagoon kaa dhamaystirin sidee golo shacab loo aadi karaa almost waa dhammaaday waxaa ku dhiman 2 iyo 2 u malaynaya 4 unbaa dhiman ayaa dhiman waxna way mal 4 hadda dhamaystiraan hal maalin ku qaban kara 4 waxba ma aha laakiin inta kale doorashadii aqalka hoose in la bilaabo la socodsiiyo waay golaha waa tashiga qaran hadda oo ra'iisul wasaaraha hogaamiye ayaga dalka mas'uul ah
haddii dalkaas dhibaato ka dhacda ayagaa ka mas-uula hadduu dhac yimaado ayagaa ka mas-uula ayagaa la rabaa haddeertaan doorashada inay socoto marka farmaajo kama mas-uula baad leedahay ra-iisul wasaaraha inuu ka mas-uul farmaajo wuxuu ka mas-uul yahay inuu carqaladeeyo rabaa carqaladda ha joojiyo intaasaan leenaha asaga carqaladda iyo dibandaabiyada iyo iska dawareegga weli uu ka shaqeynaya dan uguma jirta hanaga joojiyo wuxuu ka shaqeeya waa la wada yaqaanaa laakiin mas-uuliyaddii waxaa lagu ogyahay sida uu dhigayo heshiiskii 27 maajo ama may soo dhigayo adduunkan ictiraafsan yahay soomaalina ictiraafsan tahay waa golaha wadatashi qaran ra-iisul wasaaraha hogaamiyo asaa laga rabaa ra-iisul wasaaraha inuu leadership ka qaato hoggaan ka qaato hore u socdo golahana waxaa laga rabaa inay mas-uuliyadda qaadaan haddii kale dalkan waxay gelinayaan firaaq dastuuriya oo keeni kara crisis kale iyo azmo kale inay dhacdo way golaha wadatashiga qaran laftooda qaar ka mid waxaa la sheegay inay musharaxiin yihiin sida Saciid Cabdullaahi Dani oo kale oo madaxweynaha Puntland in maxaa ka wax diidaya male inuu isharo xaq uu leeyahay waa muwaadin Soomaaliyeed ahlan wa sahlan yaa diidaya Axmed Madoobe lafta gareen qoorqoor cali guudlaawe rooble kulhaan sharaxa haday rabaan way what's the problem marka isagu madaxweynuhu oo awoodii maamul goboleedka haya inuu tartanka ka qayb galo raali baad ku tihiin boqol kaligiis maaha kulooda ka qayb galaan danka mali oo iyagoo xukun kana haya laakiin mid laga rabaa doorashada inuu muujiyo inuusan asaga dantiisa uusan ku gaarin inuusan muujin laga rabaa hadda waa inuu guddiga doorashada deegaanka iyo ka madax banneeyaha ayaga ay si fair ah oo cadaalad ugu muuqato dadka Puntland ka tartamaya ay u helaan doorashada la rabaa laakiin de iyagii baxulayo iyaga qorayso ma way qoreen yaafurnaana kamay dhicin ba tiro waliba wad eedays oo Hirshabelle iyo Soomaaliland ba ka dhawaaba marka musharaxna hadii uu noqdo sidee baad u oran karaysaa marka waxa ka hadlayso musharax uu noqona waay ilaa hadda anaga musharax ahayna ma dhihin way hadduu dhihi lahaa musharaxaan ahay inta dhigleer gareeyo de waa lagu qaban lahaa marka waxaa dhihi lahaa sax ma hatan laakiin adigu waxaa leedahay musharax inuu noqdo rabaa inuu noqonayo dee hore u yahay waa muwaadin Soomaaliyeed maxaa u diidaa marka dhibaatooyinka kuma qabtaan ma dastuurkan ba u diidayni ma dastuurka diiday anaga maxaa dhib ugu qabaynaa way arrinta ugu dambeysay ee aan doonayno ku weydiiyo golaha sare la doortay maanta haddii la yidhaha xisbiga wada jira cabdiraxmaan cabdishakuur warsame doorasho madaxweyney galaya oo ay u food kareynayaan maxaad ka aaminsantahay inaad ka heli karnayso anaa fursadaada adiga fursadda xisbigaaga wax fursad fiican inaan ka helaya golaha aqalka sare ka wada fursad fiican inaan ka helaya aaminsanahay sababtoo ah dalkan qofka ugu dagaalka badnaa ee dictatoriyad iyo kala talisnimo iyo inuu jaxiim iyo jahanamo la aadiyo oo dagaal sokeeye lagu celiyo awoodda lagu takrifalo oo dadka iyo deegaanadooda la dulmiyo ugu badan oo hor istaagaan ah nafur badan ku bixiyey qaacido shacbi ah oo dadka Soomaaliyeed oo xoog badan taageero aan arintaas aan ugu haysanaa mabda'eena maalin isla bedelin sida farmaajo hadii oo danta beeshaada aadi iyo danta deegaankaaga haduu aad anaga lama leexan mabda'eena consistency oo ah mid cad aragti cad kale waxa dalka ka socda aanan la muufaysanin farmaajo maalin mucaaradnimadeena ma ahayn mucaaradnimo markii dowladdan ka heshan aadaysa markaada ka helin ka soo baxaysa ma ahayn hanti badan iyo energy badan iyo time badan laga gal dalka inuu hagaago ayagoo qiimeynaya dadka Soomaaliyeed intaasaan u haysta aniga fursadda ugu badan inaan ku leeyahay dabcan intaasna waxa dheer de waxyaalihii kale oo necessary-ga doorasho laga rabin in la timaado markii saddexaad baad tartamaysaa labaad markii hore xasan sheekh baad la tartantay haddana markii madaxweyne farmaajo tartanka qeyb markii farmaajo ma tartanka qeyb galaan ayaa ka qeyb gashay haddaba markii labaad haddii aad tartamayso haddii aad weydo ma kulanta inaad fursadda banayso xisbiga wada jiro aad fursado kale siyaasi xisbiga u taalaadaas hadday go'aansadaan ay dhahaan waa kugu daalnay tartamo kale aan keensanayna ahlan wa sahlan go'aamada xisbiga marka laga imaado ama xisbiga inay u taalo meelaha lagugu eedeeyo waxa kamid ah in xisbiga dad kooban yahay awooduna aad kaliya ku urursan tahay taasi miyaan la odhan karin dhinac bad adiga laftaada dictator ka tahay oo go'aamadii kaliya ku gaarisa xisbigii dad kale inito kula caawiyo oo kula shaqeeyo kula hogaamiyo ma ogoli haddiiba xisbiyada la furi lahaa oo tartanka xisbiyada dhici lahaa oo golayaashii dhexe iyo sida Soomaaliland ka hadda ay tahay oo gudiyadii fulinta la dooran lahaa oo tartan dhici lahaa de xisbiyada ka xiraba markaas la ogaa lahaa noocaan ahay inaan kaligiis tali inaan xisbiga kaligii haysto laakiin de xisbigana la ka xiraba maxaan ku eedaaba xisbiyada la ka xiray qabiil u noqdaan la yiri way arinta la xidhiidha maxkamadda go'aan baa laga yaabaa 12 bisha maxkamaddu gaadho eedo horena waa diiwaa lagu soo jeedin jiray in MOU-ga wax ka saxeexday haddii maxkamaddu ay go'aan diidma ah oo Soomaaliya ka dhan ah ay soo saarto saameynta leeyahay ku yahay ma insha Allah ma soo saaraysa mid Soomaaliya u saalixay soo saaraysa waxa dhahdaa
MOU-gaagii lagu eedeeyaa lagu baxsaday ee Soomaalina ku baxsatay Soomaaliya dhan ay ku dabaaldegto maaha dheh ninkayga 10 sano la eegayay saakii warqadii oo saxiixay yaa maxkamadii u baxsatay Soomaali dhulkeedii u baxsaday insha Allah qaadigan oo xukumi doona inay Soomaali leedahay guusha markaas sidii uu sheegay hay'adaha qaranka hadda kahor taalo maaha 5 taalo inoo dhisan u baahnaay farmaajana uu sheegay hadaa aragto taalada asaga gacantiisa noogu dhiso sababtoo asaga waxaan soo ma dhicin annaga way soo soo oo annaga Kenya ku qabsatay fiiri Kenya 2005 badda goosatay ma goosan kartiin 2019 niri haddaan oran lahayn way iska qaadan lahaydba haddana waa dhageysan kartaa iligo waxaan jeclahay wariyaasha Soomaalida kiiska markay ka hadlayaan please soo dhageysa dacwada maxkamadda lawyer-kii ugu dambeeyay Mareykanka ay hadlay wuxuu yiri Ingiriiska ay hadlay wuxuu yiri Kenyaanka waxay dhaheen dhulka anaga 2005 aan jeexan cid uu qabsatana male lawyer-kii Ingiriiska wuxuu ku jawaabay wuxuu yiri waa linku qabsaday oo 2009kii yaa dawladii Soomaaliya ku meel gaarka ah waxay tiri dhulkaanu markii continental shelfiska la xareynayay dhulkaanu waa disputed area Soomaalida nin qofkii ugu raashilsanaa oo ugu macquulsanaa wuxuu dhigay mataqaana kooxdan markay ugu yiraahdaan dhulka Soomaaliya muran galiyeen war hadaa dawlad ay jeexato dhulkaaga oo ka aamusto shib ka dhahdo say xaqaada ku helaysaa bal ii sheeg xaqaada ku helaysid waxay ku leeyihiin si anaga Kenya noo soo damaaci karta waa ku soo damaaciskay dhulkaadii qaadatay waa isaga aamustay then what haddii Kenya 15 sano aan ka aamusnaano qaanuunka waxaa jira 15 sano wax hanti aan leedahay adiga telefishinkaaga hadda 15 sano inta ka qaata soo kala gareewaysid anaa yeelanaya Kenya marka haddaan lala hadlin oo lagu qabsanin lawyer-kii muxuu yiri waa kan MOU-gaani ku qoranta uu yiri in dhulka linku haysto ma dhihi kartiin kuma qabsanin waa meeshii u dambeysay doodda ay ka gashay Kenya saas daraadeed waxaan rabnaa in taalada cidda loo dhisaayo koow annaga ay noqoto labo rajiimkii naga dambeeyay nidaamkii naga dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh oo asagana dacwada geeyay maxkamadda inay noqoto saddex farmaajkiisa u dambeeya inuu ku adkaystay ilaa ay dacwadii dhamaatay uusan ka bixin dhufayskani waa asaga libintaas inuu qaato marka saddexdeen of course inuu ku adkaystaan ku dhahay dacwada uusan ka oo dacwadii aanu ka warwareegin dhowr jeer lagu eedeeyay inuu mar diyaarad Abi Axmed Saara jirto oo la yiri uhura loo geynaya ninkii waa la gacan maroojinaya inuu adkaystana waa libinteedu leeyahay dadka libinta ka baxaysto marka waxa leedahay kiiska maxkamadda aniga aad mas'uulka inay guuleysato Soomaaliya hadii guusha loogu dhawaaqo yaa kale hadii la diido ka war ma la diidi doono insha Allah maxad waa diiday Kenya wax la sharciga waxa jiro submissionka ugu dambeeyay Kenya kama qayb gelin haddana way eedayaanba marka waxa leedahay fursadaasi ana keenay intii igu aflagaadeysay ee igu xamatay ee baan iga sheegtan hadda u sheegay iga cafis inta kale waa inay noo mahad celiyaan annaga waliba aniga dadka qaar waxaan dheerahay dawladeedii kamid ah waan ku adkaystay mowqifkayga dawladeedii dad laba labeeyaa jiraan laakiin aniga mowqifkayga waa ku adkaystay marna kama laba labeeyo oo markii Umar Cabdirashiid iyo Sheekh Shariif iyo adiga markii arrin soo baxday buuq u dhacay maan ogeyn waan ogaa waan isla ogeyn waxa soo dhan bay marka hadii ay guul ahayd oo aad MOU-ga aad saxadeen waha mid aad ku difaacaysaan badda maxaad isku ra'yi u noqon weydeen waa la argixiyay dadka si loo argixiyay dadka ku kacay qolaan buu wax akhrinba tusaalaan ku siinaa nin dhan oo weyn oo oday oo professor habeen la warsanayo oo annagana eeday tuugo waay waa dhaceen Kenya noo gacan geliso u lahaa nin weyn oo oday ah hadda dadka odayaasha kamid wariyaha su'aal weydiiyay horta MOU ma akhris markaas ma arkin wali dadku waxayna akhrinayaan ugu aadaabad ha sidana dada cabsi geliya hadda ani waxaan u bixi CBB-da naqastan ay garaacay maar dan ka cararayo dad badan ka cararday siyaasadda uga cararay ha haydoodii aflagaadadooda waa ina adkaysi leedahay siyaasadda waxa kamid ah ina adkaysi leedahay marka waxa leedahay teamkeygii qaar baa la balabeeyay oo ka baxay wixii aan isla ogeyn baalaysa taas laakiin anigu ninku meesha taaganahay wali meesha la igu yimid halkaan ma lagu yimid dabaaldeg ana la igu yimid ha aad iyo aad buu mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo aan kula kulanay xafiiskiisa wareysigaasina aan la yeelanay waa farsamadii Ridwaan iyo Khalid Bakayle tan iyo kulanti dambe waa telefishinka MMTV oo idinku dhaafaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.